maamulka gobolka Banaadir ayaa gabi ahaanba burburiyay dhismayaal ku yaalay garoonka kubadda cagta ee kooxda LLBB Kenya oo ku yaala degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir kaasoo la sheegay in si sharci darro lagu dhistay. Burburinta ayaa daba socotay kadib markii toddobaadkaynu ka soo aanbabaxnay gudoomiyaha gobolka Banaadir oo amar ku bixiyay in guud ahaanba dhismahaasi laga guro. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Injineer Yariso ayaa goobjoog ka ahaa goobta ay ka socotay burburintaasi waxa uu sheegay in dhismahaasi uu ahaa mid sharci darro lagu dhisay ayna burburin doonaan dhismayaasha kale ee iyagu qaybta ka kuwa sharci darrada lagu dhistay asiguna guud ahaanba baaq u jeediyay dad uu ku tilmaamay in si sharci darro ay ku dhistaan dhismayaal aysan ka warqabin dowladda Soomaaliya. بسم الله الرحمن الرحيم وادو جدان waxaan joognaa xaruntii garoonkii Jeenyo digniin 3 cashan siinay inay dadku baneeyaan si halkan loogu soo celiyo dantii guud ee garoonkii Jeenyo oo ahaan jiray. waxaan aad ugu mahadcelinayaa maamulka degmada iyo maamulka gobolka Banaadir iyo hay'adaha amniga oo runtii suurtageliyay inaan maanta goobta dhismihii laga dumiyo si ay caruurta iyo dhalinyaradaba ugu soo noqoto garoonkooda caadiga ah. annaga ballanqaadnay annagoo fulinayna amarkii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya dhulalka dawladda ee danta guud waxa kaliya loo isticmaali karaa waa dan guud ummadda ka wada dhaxaysa ummadda iskale. annagana ka maamul gobol Banaadir ahaan waxa naga go'an in dhammaan dhulalkaas dawladda ee danta guud ay gacantii danta guud ku soo noqoto. sidoo kale waxaan horey digniin u siinay jardiinooyinka iyo goobihii beeraha ahaa oo ummaddu ay wada isticmaali jirtay. ayagana waxaan leenahay digniintii kama dambaysteed waa idin soo soconnaa cid allaale ciddii awaamirtaas ka dhaga adeegtana sidaan oo kale ayaa muxuu ahaa goobahaas dib loogu soo celin doonaa gacantii danta guud. annaga waxaan naloo dhiibtay waxay tahay ammaanadana waxa iska leh shacabka inaan noqono maamulkoodii u adeegnana waa waxaan meesha u joogno. marka cid kasta oo isdhehayso laguma arkayna waa kuu soo soconnaa. cid kasta oo dan guud haysana waxaan rajaynaynaa inay si sharaf leh gacanta dawladda ugu soo wareejiyaan oo annagana waxaan ku dadaali doonaa inaan intii karaankeenna ah magaaladan inay ku soo noqoto sidii barisamaadkii ahaan jirtay oo la helo goobo badan oo bulshada ka wada dhaxeeya si quruxdii iyo bilicdii magaalada u soo noqoto. Saki Ibrahim Ali, Som News, Muqdisho.